injiilka sida Matayos u qoray cutubka 18 saacadaas ayaa xertii u timid Ciise oo waxay ku yidhaahdeen yaa haddaba boqortooyada jannada ugu weyn markaasuu wuxuu u yeedhay ilmo yar oo dhexdooda ayuu joojiyey oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay haddaydnaan soo jeesan oo aydnaan noqon sida carruur oo kale boqortooyada jannada ma geli doontaan ku alla kii haddaba isu hoosaysiiya sida ilmahan oo kale kaas ayaa ugu weyn boqortooyada jannada oo ku alla kii magacayga ilmahan oo kale ku aqbalaa wuu i aqbalaa laakiin ku alla kii xumeeya yaryarkani rumaystay midkood waxa u roon in dhagaxshiid luqunta looga lalmiyo oo badda moolkeeda lagu hafiyo waa u hoog dunida xumaanta aawadeed xumaantu waa inay timaaddo laakiin waa u hoog ninka ay xumaantu ka timaaddo haddii gacantaada ama cagtaadu ku xumayso iska jar oo iska tuur waxaa kuu wanaagsan inaad gacan la'aan ama lug la'aan nolosha ku gashid intaad adigoo 2 gacmood iyo 2 cagood leh lagugu tuuri lahaa dabka weligiisa haddii ishaaduna ku xumayso iska bixi oo iska tuur waxaa kuu wanaagsan inaad il keliya nolosha ku gashid intii adigoo 2 indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada dabka ah iska jira inaynaan yaryarkan midkood quudhsan waayo waxaan idinku leeyahay mar walba malaa'igahooda jannada ku jira ayaa wejiga aabbahayga jannada ku jira eegaya waayo wiilka aadanuhu wuxuu u yimid inuu badbaadiyo kii lumay maxay idinla tahay nin hadduu tiro ida'a leeyahay oo middood ay ka hallowdo miyaanu 99 buuraha dushooda kaga tegin oo doonin tii ka hallowday oo hadday noqoto inuu helo runtii waxaan idinku leeyahay taas aad buu ugu farxaa si uusan ugu farxin 99kii aan hallaabin sidaas oo kale ma aha doonista aabbihiinna jannada ku jira in yaryarkan midkood lumo oo haddii walaalkaa kugu dembaabo u tag oo canaano adiga iyo isaga keli ahaantiinna hadduu ku maqlo walaalkaa waad soo ceshatay laakiin hadduu ku maqli waayo mid ama 2 kale wado si hadal walba loogu adkeeyo afka 2 ama 3 markhaati oo hadduu iyaga maqli waayo dadka kiniisadda u sheeg oo hadduu dadka kiniisadda maqli waayana ha kuu ahaado sida qof aan ilaah aaminin iyo cashuur qaade runtii waxaan idinku leeyahay wax allaa wixii aad dhulka ku xidhaan ayaa jannada ku xidhnaan doona oo wax allaa wixii aad dhulka ku furtaan ayaa jannada ku furnaan doona weliba waxaan idinku leeyahay haddii 2 idinka mid ahu dhulka ku heshiiyaan wax kastoo ay baryaan way uga noqon doontaa xagga aabbahayga jannada ku jira waayo meeshii 2 ama 3 qof ay magacayga isugu soo ururaan halkaas anigu dhexdoodan joogaa markaas butros ayaa u yimid oo ku yidhi sayidow imise goor baan cafiyaa walaalkay hadduu igu dembaabo ma ilaa 7 goorbaa ciise ayaa ku yidhi kugu odhan maayo ilaa 7 goor laakiin ilaa 70 goor oo 7 ah sidaa darteed boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiiyaa nin boqora oo doonayay inuu addoommadiisa ka xisaab qaato goortuu bilaabay inuu xisaab qaato waxaa loo keenay nin 10,000 oo talanti uu ku lahaa laakiin wuxuu ku bixiyo ma uu haysan markaasaa sayidkii wuxuu ku amray in la iibiyo isaga iyo naagtiisa iyo carruurtiisa iyo wuxuu lahaa oo dhan oo lagu bixiyo addoonkii haddaba wuu dhacay oo intuu sujuuday ayuu wuxuu ku yidhi ii dulqaado anna waan wada bixin doonaaye
markaasaa addoonkaas sayidkiisii u naxariistay wuuna sii daayey oo amaahdii wuu u dhaafay. laakiin addoonkaas ayaa baxay oo helay mid ka mid ah addoommadii uu la shaqayn jiray, kii uu ku lahaa 100 diinaar. wuu qabtay oo intuu ciijiyey ayuu ku yidhi, bixi waxa lagugu leeyahay. addoonkii uu la shaqayn jiray ayaa haddaba cagihiisa isku riday oo baryey oo ku yidhi, ii dulqaado, anna waa bixin doonaaye. isaguse ma uu doonaynin, laakiin wuu baxay oo xabsiga ku tuuray ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa. haddaba kuwii la shaqayn jiray goortay arkeen wixii dhacay, aad bay u calool xumaadeen, oo intay sayidkooda u yimaadeen ayay u sheegeen wixii dhacay oo dhan. markaasaa sayidkii u yeedhay oo ku yidhi, addoon yahow sharka lahu, waxaan kugu lahaa oo dhan waan kuu dhaafay, waayo waad i bariday. miyaanay ahayn inaad kii kula shaqayn jiray u naxariisatid sidaan anigu kuugu naxariistay? markaasaa sayidkiisu cadhooday oo u dhiibay kuwa dadka silciya ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa oo dhan. sidaas oo kalena ayaa Aabbahayga jannada ku jira idinku samayn doonaa, haddaan midkiin weliba qalbiga ka cafin walaalkiis.